hayo arday baana hayo ubaxii wadankaana hayo. salaam akhyaarta maanta waxaan bilaabeynaa muuqaal taxane ah oo aan ku baran doono sida loo qoro literature review. muuqaaladan waxay ka koobnaan doonaan ilaa 3 cashir. hadafka aan ka leenahay waxa waaye in markaan dhammeeno ay ardaydu isku dayi karaan inay qoraan literature review. laakiin intaanan gacanta la gelin oo aan literature review sida loo qoro aynan bilaabin, waxaa muhiim ah inaan isla fahanno concepts. marka cashirkan wuxuu kow u yahay casharada 3 qayb ka kooban ee ku saabsan qorista literature review. casharadan waxaa dhiirigeliyey Professor David Taylor oo ka tirsan jaamacadda University of Maryland. asigaa duu muuqaalo aad u wanaagsan oo aan isdhahay kuwaas haddii aad ardayda tusto ayagoo Soomaali ah wax badan ay ka fahmi doonaan. maanta waxaan rabnaa marka inaan barano 2 shay. kow, waxaan rabnaa darad waxaan soo baranay sida topic loo doorto. maxaa marka stage ku xigay waxa waaye markaad topic hesho waa in aad bilowdaa literature review. literature review laakiin intaadan bilaabin waa inaad heshaa articles aad literature ka qorto. marka muuqaalkan waxaa idinku tusaa intaadan literature ka bilaabin articles topicaada ku saabsan oo relevant-ga ah oo adigoo isticmaalaya hal article sidaa ku wada hel lahayd, kadibna literature review aan bilaabeynaa. literature review qoristiisa topic videoyada 2 iyo 3 aan ka dhigaynaa, laakiin kan waxaan ka dhigaynaa waxyaabo muhiim ah inaad fahanto si ay kugu fududaato qorista literature review. kow, qodobka koowaad, one article technique waxa la aan baranaynaa. one article technique waxa waaye markaad rabtid wax qorto hal article oo relevant ah kugu filan. halkaas article adigoo isticmaalaya waxaad sameynaya marka wixii kale articles ah halkaas xabaa kasoo wada bixinaya. tusaale ahaan waxaan rabnaa inaan wax ka qorno tusaale ahaan sida casharada hore noo soo socdeen e-commerce aan wadnimaho. waxaan rabnaa inaan wax qorno tusaale ahaan payment Africa. marba ha ilmaamin inverted comma maxaa yeelay Google uu ku kooba markaa rabtid inaad qaabka samaysid. payment-gii kow waxaa kaloo rabnaa inaan wax ka qorno and oo capital ku dar. waxaa kaloo rabnaa inaan wax ka qorno trust-ga dadka ay ku qabaan e-commerce-ga. iyo qodobka ugu dambeeya ah e-commerce-ga naftirkiisa. kana waxaan tusaale ka soo qaadaynaa marka topic-gaadii inuu ka noqday oo muuqaalkii daraad markaa fiirsatay waxaa go'aansatay inaad wax ka qortid qaabka dadka lacagta ay u bixiyaan iyo kalsoonida ay ku qabaan e-commerce-ga. intaas markaa qaato oo kadibna aan isla aadno Google Scholar-kii waa kana ani waan geliyey marka hadda u fiirstaan intaan geliyey payment, trust, e-commerce kulligoodana waxay ku jiraan inverted commas. okay, hal article aan raadinayna bis wax kale aan raadinin. waxaan exploration ma ahaya topic ma raadinayso. topic sida loo raadiyo daraan soo baran. hadda waxaan ka hadlaynaa topic-gaadii waa haysataa, kuwan waa keywords-ka. hal article bis aan raadinaynaa. halka article marka mid ugu horeysa daa fiirsid waa trust e-commerce kadibna consumer perception waa mid nagu filan waaye. halka xaba waa nagu filan. laakiin kow waxaa raadaysaa mar walba articleska aqrinaysa waa inay yihiin article quality leh. si ku ogaanay journalka ka aqrinaysa article waa in ay publish gareeyaan publisherska caanka ah. tusaale ahaan kuwa Emerald ay publish gareeyaan journaladu way fiican yihiin. Elsevier wuu fiican yahay. Springer wuu fiican yahay. waxaa iska aqrinaa article kasta maxaa yeelay kugu qaara available ah laakiin haddana quality ma laha oo peer review ma aha. article aan peer review dhahayna aqrin. okay, tan haddaan degsan marka PDF waa let us go tan article waa kana marka trust and e-commerce maxaa xiriirka ka dhaxeeyo ayagoo markaas fiirinaya consumer perception-ka ay ka qabaan e-commerce. waa article aadna la xiriiro wixii aan hadda baarayna soo maaha. article-kan yaa daabacay waxaa daabacay journal-kan Electronic Commerce Research and Applications. okay, this is the journal. journal-kan ma qualities ma fiican yahay mise ma fiican waxaa ku ogaa kartaa yaa publish gareeyay. waxaa publish gareeyay waa kuwan Elsevier waa mid ka mid ah publishers ugu caansan ee journalada publish gareeyay. marka journal kasta lagu ay publish gareeyaan Elsevier waa ku kalsoonaa kartaa article-ka lagu qoro waa peer review. hadda marka akhrisaa ku bilaabi kartaa. marka meeshaan waa meesha aan rabno inaan ka bilaabno literature review. literature review marka article hesho article-kan akhri kadib markaa u baahatid article kuwan la mid ah ha u noqonin Google Scholar. aan ku celiyo ha u noqonin Google Scholar si aad u hesho articles kale. kan leh
isticmaal dhexdiisa aqri meelaha uu citation ku sameynayo pointyadaas pointi kula xiriira haddaa aragtid articleka uu ku tilmaamayo aad kow ama dhexdiisa ha aqrinine toos waxaa u aadaa referenceska aan tagno referenceska ha hilmaamaya waxaan wax ka topic arabna waxa waa payment trust iyo electronic commerce saddexdaas shay waay kadib marka waxaan aadaynaa referenceska article kastoo saddexdaas shay ku saabsan wuu nala xiriiraa waa soo dejinaynaa referenceska nagee okay waa kana this is the referenceska joogtaa soo maaha hadda marka aan articleskana fiirinayna articles oo reference ku yaal dhan mid mid aan fiirinaynaa mid nala xiriira waa soo degsanaynaa see loo soo dejiyaa waa baranay laakiin horta hay dambaystaas waxaan fiirinaa articleska 1 an integrative approach to the assessment of e-commerce quality mana la xiriiro within the web orient business nala xiriiro business data communications waa iska dhaafeynaa almuhiim soo soco number waxaan fiirinaynaa 10 10 wuxuu ku dhahay consumer trust in an internet store so nala xiriira exactly waa nala xiriira 10 waa nala xiriira 10 waa qaadi karnaa yaa kaloo nala xiriira 11 fiir haddana 11 waxaa lagu dhahay trust issues in e-commerce so nalama xiriir waa degsi karnaa kan labaad fiiri kan 12aad strategies for reducing customer risk aversion and internet shopping waa nala xiriiraa waa soconaynaa waxaan kaloo fiirinaynaa 14 fiiri waxaa lagu dhahay initial trust perceived risk and the adoption of internet banking waa nala xiriiraa almuhiim isku soo wado hal article oo relevant markaa heshid referenceskiisa aad articleska dhan qaabkaas u soo degso articleska markaa aragtid oo tan ku anfaco maxaa la sameeyaa waa baranays waxaa aadaysaa sci-hub kadibna meeshaas articleka soo degso magacii waaba haysataa waa ka copy ku dheh inta geli DOI-ga bis meeshan geli waa baran halaas that is the first stage markaa topiga hesho articleska literatureka ka qor lahayd qaabkaas u soo deji hal article raadi kadibna referenceska tag articleska la xiriira soo wada degso hadda marka stage ku xiga waxa waaye literature review-ga bilaabayna literature review markaa intaadan bilaabin ka hor waxaa muhiim ah inaad concepts isla fahan conceptska saddex shay u kala qaadayna kow literature review muxuusan ahayn labo literature review waa maxay saddex ujeedka u qoraysin muxuu yahay saddexda su-aalaan ka jawaabaynaa video kale marka waxaan ku sharxaynaa inta qaab loo qori karo videoga saddexaadna waa qoraynaa literature review okay literature review kow ma ahan essay ama research paperkaada ma ahan waa inaan isla fahanno waxaan ka wadnaa waa qayb ka mid ah researchkaada ee maba aha researchkaaga dhammaantiis ma aha asiga qodobka labaad oo muhiimka ah waa literature review ma ahan meel lagu caddeeya pointigaada iyo waxa aad qabto ama pointigaada ha ka soo horjeedo ama pointigaada ha la jiraan article kastoo ku saabsan mawduucaada waa inaad ku dartaa literature review-gaada no matter haddii argumentigaada uu waafaqsan yahay iyo hadduu kasoo horjeedo positionkaada meeshan qasab maaha articles adigu ku waafaqayna inta isku keento maaha waa inaad dhinac kasta articleskiis keentaa marka labadan shay waa inaad fahanna ma ahan meel research paperna ma ahan waa qayb ka mid ah qaybta labaadna waxa waaye ma ahan main point ama argumentigaada waa qayb aad ku sheegaysid dhinac kasta waxay qabaan maxaa marka literature waxaan kala qaadaynaa horta waa major work topicii hadda aan baarnay oon dhahnay payment iyo trust iyo e-commerce meeqo dadka wax ka qoreen yaa waay kuwaas hawsha ay qabteen waxaa la major works marka adi wax kasta electronic commerce soo degsanin waa inay saddexdaas qayb ahaadaan that's why narrow topic inaan lahaano ee qasab tahay narrow topicaas kadib reviewed inaan ku sameyno waay narrow topic maxaa waaye narrow topic waxaan ku wadnaa hadda saddexdan shay waa narrow waa noo yihiin si fiican ay noogu yaryihiin waa area manage garay karno aanan ku dhamey karno muddada aan qorayna literature review qodob kale ugu dambeeya waxaa reviewed inoo yahay waay reviewed waxaa laga wadaa waxaan aad qoraysid waxaa kasoo qaadaa sida adoo sawir qaadaya sawir markaa qaadid soo kor wax kama sawirtid snapshot sawirkaas waa inay ka muuqdaan major concepts macnaha waxaa laga wadaa
sawirka waa inaad ka qaadaa halahan kadibna waa inay ka muuqdaan conceptyadii oo areadan laga sameeyo dhan hadhow marka articleka akhrisa arki doontaa qof walba wuxuu soo saaray that is his major concept kadibna waxaa la rabaa relationshipka ka dhexeeya waa maxay waxaan hadda aad soo saartay oo aad dhahday waa kuwan conceptiska maxaa waye relationship ka dhexeeya relationshipkaas waxaa u sheegi kartaa qaab timeline ah goormay soo bilaabatay aasarka ugu horeeyay relationship yaabaa sheegay yaa ku xigay ama topic inta iskugu xirto aad relationship u samey kartaa qaybtan marka waa fahmaa si fiican uma caddo oo inaa fahantiin wax yar waa iska adkaan kartaa laakiin markaan bilaawno qorista oo video soo socdaan qoraalka bilaawno aad toos u arki doontaa sida loo sameynayo almuhiim hadda waxa waaye waxa marka review ku sameynaysid waa inaad sawir ahaan u fikirtaa waxa aad sameynaysid waa inay hawsha areadan dhan aad baarayso ay ka wada muuqdaan literature reviewgaada halahaas waxaa la lahaa reviewed markaa maqashid waa midaas ujeedka maxaa waa ujeedka horta adiga waa inaa fahankaada uu sare u kacaa ilaan areadan hadda tusaale ahaan inteena hadda waxba si fiican uguma fahansanin laakiin markaan bilowno articles aqrinta oo meeshaas ku saabsan waxaa kor u kici doona fahankeena hadafka labaad waxa waaye hadhow markii wax lagaa weydiiyo waa inaa fahansan tahay markaa wax qoraysid waa inaa aqoon wax ku qoraysid qodobka ugu muhiimsanna waxa waaye qofka literature review hadafka laga leeyahay waxa waaye qofka wax qoraayo waa axsanaa u samaynaysid markuu waxaad aqriyo waa inuu update ahaadaa asigoonan baarin oodan meel kale aadin waa inuu fahmaa saddexdan shay xiriirka ka dhexeeyo hadduu aqriyo keliya literature reviewga marka intaas ugu muhiimsan qorista literature reviewga videoga labaad waxaan ku bilaabeynaa laba qaab oo fudud ardaydu ka bilaabi karaan videoga saddexaadna gacanteedan ku qoraa waa arki doontiin haddii ay tahay markii ugu horreysay aad channelkan muuqaal ka daawato waxaan kaa codsanayaa inaad riixdo subscribe si aad qayb ugu noqoto bulshada aan halkan ku dhisayno haddiise aad doonayso in fariim ahaan aad u hesho had iyo jeer wixii aan ku soo kordhino channelkan waxaad riixi kartaa sumad u eg gambaleelka ee ku taalla dhanka midig ee subscribe mahadsanid